بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa maxamed. waxaan jeclaa insha allah tacaala inaan idinla socodsiiyo oracle 11g hadduu leeyahay insha allah tacaala. waxaan ogaataa oracleka waxaa isticmaalo ama waxaa loo isticmaalaa programming language-kana waxaa loo isticmaala qaabka database-ka loo isticmaalaa. waxayna u qaybsataa two parties, waa DBA macnaha waxa waaye waa developer iyo waxay u qaybsataa administrator. labadooda waa noqon kartaa laakiin both of them kuwada shaqayn karto ama inaad noqotid maxaa la sheeg developer ama inaad noqotid administrator. So hadda waxaan rabaa inaan bilaabo basic inaan ka bilaabo insha Allah tacaala ila socon. waxaan tagay my computer then waxaan ka tagay SQL class. Okay, inta markaa joogo waxay tahay waxaa ogaataa mid xasuusnaa oracleka wuxuu leeyahay userada waa two parts, waa waxaa loo kala qaybaa waa scout iyo wuxuu kala leeyahay maxaa la HR. So waxaa gala userkaas then passwordkiisa wuxuu leeyahay tiger. Okay, then 11g waa ku xiranahay database-ka. hadda waxaan u baahnaa marka inaan arko userada maxaa la sheeg tablada inside-ka ay ku jiro 11g inaan arkaa. Okay, example database aad sameysay ama tablada aad samaystay tablada adig kugu xiran qaabka u sameynaysid laakiin hadda tan example ahaan tablada ay ku jiro meesha. Okay, waxaan rabaa whenever aad rabtid marka table inaa aad whenever aad rabtid in markaas table aad select aad dhahdid waxaa leedahay select space asterisk ama asterisk from waxaa leedahay cat select asterisk from cat. waxaa markaa aad ka raadinay tablada ay ku jiro cat waxaa leedahay semicolon enter aad dhahay. waxaa ku jirta tablada marka table name iyo table tabkiisa waa kana wuxuu soo jiraa dhinaca maxaa la midigta leftina waxaa jira tabladan la sameeyay marka bonus aa sameeysan department aa sameeysan employee aa sameeysan cell grade aa sameeysan. Okay, suppose waxaan rabaa inaan idin sheego waxaan rabaa magacayga inaan qoro example ahaan waxaan rabaa inaan qoro Maxamed Faarax inaan qoro rabaa. Okay, marka dhawo example enter aa dhahay waxaa ii soo baxday unknown command ii soo baxday. Okay, waxaan rabaa magacayga marka inaan caadi u qoro oo wixina ay sii socdaan waxna aan sii qoran karo ayadoosan error dhicin. waxaa leedahay marka minus kadib waxaa leedahay Maxamed waxaan qoraa Faarax aan qoray. Okay, enter aan dhahay error ma jiro. dan waxaa sii sax haddana select waxaan dhihi karaa example waxaan rabaa inaan markaas aan sameeyo raadiya rabaa maxaa la inaan arkaa rabaa department of tabladu ka samaysan yahay maxaa la sheeg department because waxaa waaye waa kow waa bonus table waa department table employee table and cell grade. So waxaan u baahanaa department select waxaan dhahay asterisk tablada ay ku jiro department-ga inaan arkaa rabaa. department-da meeqa table oo ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay maxaa ku dhex jiro maxaa la sheeg department-ga waxaa ka mid ah department number iyo d name oo ah department name iyo location-ka uu ku macnaha uu ka example accounting wuxuu ka samaysan yahay New York waxaa la research wuxuu ku yaalaa Dallas waxaa la sheeg sales wuxuu ku yaalaa Chicago and operation wuxuu ku yaalaa Boston. Okay, waxaa rabaa marka inaan arko describe-ka qaabka uu samaysan yahay shaqal ahaan uu samaysan yahay department-ga waxaa leeyahay describe. Okay, describe waxaa leeyahay department qaabka department uu samaysan yahay department wuxuu samaysan yahay qaabkan tusaalahaan kale waxaa rabtaa shakalka inaad aragtid. hadda waxaa ujeednaa elements meesha ku jira accounting aa ujeedaa research aa ujeedaa sales inta ugu jeeda sababta waxay tahay department wuxuu ku dhex jiraa department number waa kana waxa waa department 10 department 20 department 30 department 40. Okay, d name ama department name waxaa ku jira accounting research sales and operation aa ku jiro. Okay, location waxaa ku jira waxay tahay waa New York Dallas Chicago iyo Boston aa ku jirta. Okay, so waxaa rabaa example kale waxaa rabaa inaan ogaado qaabka uu samaysan yahay ama okay second thing waxay tahay department number markaa sameynaysid you have to inaa isticmaalisid null sababta waxay tahay department number always waxa waaye null ma noqon karo fantamalena it should not be macnaha null waxaa la meesha inay noqoto ever fantamalena ama anagu wax value aan lagu qoro ma noqon karo waxaana isticmaali waxa la yiraahdaa number. Okay, second waxa d name markaa isticmaalaysid you have to inaa isticmaashid variable character because of magaca wuxuu ka samaysan yahay character wuxuu xaraf uu ka samaysan yahay so ma ku qori kartid meeshaan number you have to inaa ku qorto. second option waxay tahay location kan
ujeedna wuxuu yahay location wuxuu ku sameeyaa laftigiisa waa xarfo waa New York waa alphabetic maxaa la Dallas waa alphabetic you have to inaad isticmaashid variable character inaad isticmaashid I think waxaan u maleynayaa 5 daqiiqo dhamaatay waxaan jeclahay ilaa 8 9 daqiiqo maximum inay 10 daqiiqo inaan duubaan jeclaa okay waxaan rabaa inaan ogaado qaabka uu ka sameeyay asagana muxuu ka sameeyay employee waa kana employee table employee waxaa la describe employee and asana wuxuu ka sameeysan yahay waxa ku dhex jira maxay yihiin tablada marka hadla structure-ka uu sameeysan yahay structure-kiisa wuxuu yahay waa marka describe alada waxa raadinaysaa structure-ka qaabka uu sameeysan yahay department number always waxa way null one employee number employee number waxa way employee number because employee number always waxa way waxa la primary key waxa waa 1 2 3 4 5 6 macnaha department macnaha employee ma yeelan karaan same number same magac waa yeelan karaan laakiin same employee number ma noqon karaan waxaa kamid e-name oo kale oo variable character inaad ku save garaysid sidoo kale marka create garaysid table job waa inaad ku macnaa variable character way because of ala job ninka waxa waa salesman ninka waxa waa manager ninka hebelo waa gartaa malena waa writing okay mgr waa number and hire date waa date macnaa marka quraad sameynaysid table ka sameynay selma macnaa waa salary waa number because waxa qoray waxa la salary how much bala bala qoray fanta malena okay commission waa lacag aad saaraysid ama commissionka lacagta markii employee-ga ay sanadkii markay dhawaato markii company uu faa'iido helo qof walba waxa uu saaran commission oo ganta malena commissionka ay qaadanayaan afanta malena oo u raacaysan ana lacagtooda ama bonus lacagtu raacaysan department number waxa way also waxa way wuxuu noqonaa number okay so waxaana marka employee xala marka employee laftigiisa maxaa ku dhex jiro now waxaana marka maxaa ku dhex jira employee hadda structure-ka aragna xala marka select start from employee xala intaan ku kooban intaan ku kooban yahay ujeeda ma wuxuu ku kooban yahay wuxuu department number department name job mgr hire date salary commission agarta malena okay wala socotana malena saaqaysa okay waxa ogaataa example waxa rabaa user-ka hadda isticmaalay inaan ogaado which user ku jira waa helmaamay example ana wax sameynay ama wax raadinay helmaamay waxa rabtaa marka user-ka ku jirto inaan ogaato xalada marka show user-ka isticmaalaya iska isticmaalaya example waxa rabtay adoo HR wax ka raadinaysid HR ku jirtay waxaana ka raadinaysaa waxa rabtaa inaa iska tablada ku jira inaa aragto so waxa leedahay oh table-kay ku jira show user symbol waxa arkaysid marka wala socotaan okay waxa ogaataan markii aad sameynaysid tablada aad ku xisaabtamaysid ama table-ka aad soo sameeyay creation-ka marka ku jirto mar walba you have to waxa need ah ku inaa waxay tahay waxa aad qoraysid ama sa u qoraysid salaano kale job marka aad qoraysid you have to marka rabtid inaad raadisid example waxa rabaa select waxaan dhahay from employee example waxaan qoray small capital it's okay bas ana fahantamana sababta waxay tahay upper case-ka haduu ku wixeysan yahay oo ku shaqeynayo upper case markuu ku shaqeynayo it's okay laakiin marka raadinaysid maxaa la iska salesman soo u qoran yahay marka bedeli kartid you have to know qortid salesman maskaxda inaad ku heshid marka gareynaysid table-ka ama marka wixinaysid erayada magacyada dadka aad qoraysid hire date-ka everything you have to ina xasuusnaato waa gartaa malena so insha Allah taala wixii oo dheeraad ah iyo wixii su'aalaha waa ila soo socodsiin kartaa sana si wada insha Allah doolaarado inta markaas aan ka gaaray ama aan ka dhamaan insha Allah doolaarado waa mahadsantiin